حبتلي ذي حمر هالليل حمر قبل تشوف حجاب كحر حشوتا حرية يقمودان حغلو مرقبة دشوك حجاب كحر حشاتا حرية يقمودان حغلو حدقتي أفريكا حلكي قرنقاي عيال حمري عيال حمري حرير قلبي حرم باتاي حدقتي أفريكا حلكي قرنقاي عيال حمري عيال حمري حرير قلبي حرم باتاي حراقة ضيع القصيمي يدور حبال حنبار سنطاي ارتحامار كوغالة هاي حراقة ضيع القصيمي يدور حبال حنبار سنطاي حارون سومالي وحرواتك حمري إلهيك حفظه حارون سومالي وحرواتك حمري إلهيك حفظه waxaan u taaganahay sida u jeedaan oo bahdi fanaaniinta bulshada qaybeeda kala duwan ee reer Nairobi ay u taagan yihiin qorraxada iyo cadceedda Jomo Kenyatta Airport waxay muteysatay ayaan xasan basri ayaan wadani oo kamid ah fanaaniinta qaranka Soomaaliyeed gaar ahaan fanaaniinta lagu yaqaan xagga wadaniyada magacay wadataa ka garan kartaan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay soo dhawow waxa dhinacayga bidix taagan oo raba inaan ka bilaabo fanaanadeena weyn Jihaan oo maanta u taagan soo dhaweynta fanaanadeena weyn soo dhawow waxaan rabaa inaan kelmadaada aad ka dhaxdo soo dhaweynta halkaan aad taagan tahay maanta iyo walaasha ayaan wadani qaabka aad u soo dhaweynayso marka aan ku celiyo ما شاء الله عادي هذا أبو فرحسن هي ما شاء الله عادي هذا أبو فرحسن هاي ما أنت إلا يحلى إنا أتجنانو ولا شيء أيام ودني مرنا فنانة دين قالية أنا جو داري أنا جو جاجاب سكوب جرنو دمانتين وحواي وحال كان أنا كمرنين كاميرمان يدا ما شاء الله عليه هاي وحا قرب كيغا تاغن متان كيغا نينك كليو اسلا اغنahay هذا وين marka ayaa waxa leeyahay soo dhawow aad meel laga jecel yahay maaday waa kaasa boqortooy madaxa noo saaran tahay annagana waxa leenahay soo dhawow waxaan rabaa markaan aan ku xijiyo fanaankeenna weyn Iidla Cabdullaahi Iidla Yare oo maanta soo dhaweynta walaashiisa garab u taagan Iidla maxaa leedahay horta aad salaama waxaan halkaan ugu mahadcelinaa horta kaamirmaanada dhan oo soo xilqaameen oo imaadeen kulli waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsantihiin all the cameraman in Nairobi waxaad leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin maadaama aad naga soo horeyseen anaga gadaal ka imaanay kolley ayaana weynoo joogtaa baabateen amina waxaan dhihi lahaa dadku jecel imaatay xaafad ku jecel hadda waan ku xaafadeena wadaadadii odaash fiican isku meeshan marka alxamdulillah waxaan leeyahay aad walaashii macaanay ayaana iid awf gaabnida ayaan aadan ku sawaashi macaan soo dhawaashi macaanay intaan wada cameraman ya
oo soo xilqaameen oo gaari soo qaateen waxaa leeyahay wada maasiin kuligood ما شاء الله aad maasiin shacabka ayagana gabdhayna quruxda badan waxaan leenahay idinka aad maastiin wixii daawo amarsan Allah caafiyo marka aad salaama waa mahadsan tahay waxaan rabaa intaan ayaan u gudbin waxaa dhinaceena kala taagan fannaankeena weyn maxamed kaadheere oo ka mid ah weli xataa la sii dhihi karo qofka ugu dhow ayaan waaye marka la yidhi xagga taalantiga ama heesaha oo lamaanaha ah heesihii hore maxamed waxaa u taagan tahay maanta qoraxada soo dhoweynta walaasha ayaan wadani waxay iyada muteysatay maxaa kelmadaada ku aadan aad ka leedahay soo dhoweynta maanta ayaan intaan waxaan dhihi karaa way yar tahay in ka badan iga istaahishaa inaan qorax iyo kuleel iyo meel walbaan u istaago waa walaashay aan aad u jeclahay waa walaashay aad igu qiimo weyn waa walaashay haddee keliya aan nafta un baan noo kala duwan maasha allah aad baan u jeclaa walaashay haddii even DNA-ga la baaro waxaan u malaynayaa inaan isku soo abtirsanayno waayo ayaana xasan basri waxaan leeyahay ayaan wadani walaashay mar labaad iyo mar saddexaad niyow kaalay meelahan dad maa ka hadlayo niyow dhibkaasaan qabaa dadka gaggaaban aad uma arkin marka waxaan leeyahay ayaan magaaladaadii baa timid mar labaad iyo mar saddexaad soo dhowow qalbi ku jecel walaalaha bahdaadii uu hogaaminayo walaalkeen ciise iyo sharaf iyo karaamo iyo mudnaan intaba naga mudan iila yare waxaan leenahay waa ku jecelnahay ayaane هذا كلام ده كرم وحن شيء نوع بين قلبي جانو بين ولا شيء معاني شاور قويسن بلدي ومعنا جرافا بلدي جرافا بلدي جرافا لو قابتاني waxaan ku jirnaa soo dhaweynta kelmadeena soo dhaweynta aheyd waxaan rabaa inaan u gudbo walaalkay hadan kaashaan iyo walaashay xaliimo ayagana kamid ah fanaaniinta iyo bahda fanka ee maanta soo dhaweynta qaybta ka ah soo dhaw aad iyo aad maanta waxaan halkan u taaganahay bulshada dhan ee halkan u taagantahay soo dhaweynta walaasheena ayaan wadani waa fanaanad lagu qaali ah sharaf iyo karaamo aan u hayno haddaan nahay bahda fanaaniinta waxaan leenahay soo dhow magaaladaada weeye insha allah dee waadan isla joognaa xaliimari soo dhow waa mahadsan tahay waxaan soo dhaweynaa walaashii ayaan waxaan ku leeyahay welcome to Nairobi dee halkaas hadal isku fiicnaa annagana waxaan leenahay soo dhow waxaa kaloo qayb ka mid ah soo dhaweynta ka mid ah cabdiqaadir oo ka mid ah bahda maxaa la dhahayay meediyaha soomaalidana mar walbana u taagan qof walba oo Soomaaliya u timaada magaalada Nairobi inuu soo dhaweeyo cabdiqaadir marka hore oo ku soo dhaweynaynaa dhammaan bahda meediyaha gaar ahaan bahda kale ee warbaahinta qaranka Soomaaliyeed oo maanta u taagan fanaaniinteeda qaranka soo dhaweynteeda waxaan leenahay soo dhawow aad u mahadsan tahay ugu horeyn walaasheeda qaaliga ah boqoradeena magaalada Muqdisho qofka degan ama qofkii marti u noqdo ayaan wadani si fiican u baranayo waa gabar boqorada soo dhaweyn fiican sooriyeyn fiican maantana dhamaanteen waxa uu wada taaganahay halkan aan ugu wada sugannahay soo dhaweynta walaasheen ayaan wadani xilliga marka loo eego magaalada Nairobi qof nasiib leh unbaa intaanoo qof ay soo dhaweysaa marka kale waxaa arkaysaa in dadku ay xilliyada subaxii ay hurdaan walaasha ayaan wadani waxaan ku leeyahay ku soo dhawow magaalada Nairobi magaaladu waa magaaladaadii bulshadii oo dhanna waxaan kaa gaarsiinay message-kaagii wanaagsanaa inaa gabar qalbi nadiifa tahay maantana dhammaanteena waxaa ugu wada taagannahay qalbiga nadiifka ah shalay aad nagu soo dhaweynaysaa maantana kuula taagannahay ku soo dhawow Nairobi abwaaniintii oo dhan aa wada joogaan wariyahan u daynaya wixii kale oo soo dhaweyna waa mahadsan tahay waxaan rabaa intaan u gudbin abwaanadeena weyn ee fartuun iyo erayadeeda aad u macaan waxaan rabaa soo dhaweynta waxaa qayb ka mid ah weli ka mid ah fanaaniinta iyo maxaa la dhahay abwaaniinta Soomaaliyeed fartuunan waxaan rabaa xag soo martal marhaa laakiin waxaan leenahay marka hadal wax ma tare marka maansadii u gudbaynaa abwaanadeena fartuun waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad soo dhaweyntaada iyo erayadaada aad ku macaan ugu tala gashay walaasheen fanaanadeena qaranka ayaan wadani ku soo dhawow salaamu alaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaan ku faraxsanahay walaashii ayaan inaan maanta soo dhaweeyo ayada xamaray ugu soo dhaweysay ana Nairobi aan ku soo dhaweynayaa waa fanaanada kaliya oo fanaannimada iyo wadaninimada isku haysato marka lama wada sinno
waxaan leeyahay walaashay soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow waxaayaanay ku dhalaayoo dabteer iska tahaya isirgamudulohodira habeenilooga gelena ikhyaarta abgahal cismaan indhaawrona sideeda daboo waca isla ku dhalay ayaana ikhyaartii macalliney kaan makaan inaan ku iloowa habeenkii xalay ahaa anna walaashay rumey waad ammaanan tahay soo dhoweynta qaada sooryan ku bixin lahaa sidii adiga doqonta sahal baan ka dhigaya sidaad iigi soo dhaweysaan u soo socdaa ayaanay kama seexan gabahaygaaga sida runta walaashay soo dhawow saacadee kastaba waxaan leeyahay walaashay ku soo dhawow gacmo furan Nairobi wali waay soo dhaweyntaada yaa isgaar amaan huwan ina adee roob aroortidaay ikhyaarta gabadhoodii ararkii wacay isir gobaada macalliney kaan makaan adeerkay xasan shiikhi qamaan wou astaahila adna ayaan tegaydiyey eega soo dhow maxamed kaadheer halaaga qari waa iga dheeriye abwaanadeena fartuun waa mahadsan tahay waxaan rabaa intaan u gudbin ugu dambeynta inaan mar soo dhaweeyo abwaan fanax oo ka mid ah abwaanada Soomaaliyeed eray 2 iyo 3 soo ugu dhaxal mar aad baad u mahadsan tahay burhaan ugu horeyn horta waxaan u mahad celinayaa dhammaan ka qaybgalayaasha barnaamijka ka soo qayb galay oo ayaan soo dhaweynteeda waqtiga iyo maxayta juhdiga soo galiyay mahad celin kadib si gaar ah waxaan haddana u sii mahad celinayaa kaameramanada waqtigooda iyo juhdiga ayaguna gelinayaan inay barnaamij qurux badan ay maanta halka nooga duuban oo walaashin ku soo dhaweynayno ayaan xasan axmed waxaan leenahay ayaan wadani ku soo dhawow Nairobi ku soo dhawow magaalada xadaariga ahayd ku soo dhawow magaalada fanka iyo waliba dadku jecel madaxaad noo saaran tahay intaana kuma ekaad doontee waliba haddii la taga xaafadii hoteeladii soo dhaweyn kala sii jiri doonta insha Allah waa mahadsantihiin shukri adiga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام على دمانتين سدود ولا شيء وحنا هاي أيان وحكي مات مقدشة وحنا مات مقدشة كلا سمني أيان يسترجعت كتالا سمني أيان يسترجعت كتالا سودوين تنجحه سوريين تنجحه سلام دير نجحه سمن نقول باشال سودوا ولا شيء كعم فرنكو سودوا فنانة أوديب فنانة ماندر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبيبتي سو دhowow marar badan aan ku daawanay maanta laakiin caadi live ku aragna ku faraxsanahay qoraxda dartaa loo taagan yahay soo dhow xabiibtii soo dhow baa masha Allah waan dhowahay waxaan soo dhaweynaynaa maanta walaashay macaan ayaan wadani soo dhawaaleyna magaaladaada labaad absolutely welcome markale okay annagana markale mar saddexaad soo dhawaan leenahay ayaan waxa u dambeysay kelmadaadii soo dhaweyntaadii iyo maanta loo taagnaa darteed waxaan ku leenahay mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawow bah fanaan bah media bah kale bulsho Soomaali waxa loo taagan yahay soo dhaweyntaada Nairobi waxaan leenahay mar kale iyo mar labaad iyo mar afraad iyo mar shanaad buu soo dhaweey ma sha Allah أنا أقول علاس واسكلا سوري حركة بحتاكين بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت أرتو فرحديدا إن ما ركتي وحلا قياسي كرمهن آدي آدم فرح سنة هاي وحان فيلاي نواي ولا عليها إن فنانين تيدا قروح ذو بدن أبوانين تيدا كاميرمانadeyda wiilasheena saxaafada dhammaan waa mahad celinaya si qurux badan oo walaalnimo leh oo qalbi wanaag leh isoo dhaweeyeen dad loo yimaado reer Nairobi dadka ugu sharafta badan waay dadka ugu qalbiga wanaagsan waaye taariikhda ay xusin doonto abaalkaasna waa idin haya ma sha Allah kal ilaa waliba tiishalana waa idin raali gelinaa abaalkaasna waa idin haya
walaalkay iidle xalay xoogaa hurdada waa wareertay marka maasha allah walaalkay waa kaaga mahad celinaya 1000 jeer maya iidle xaa kugu dhacdiga iidle lajan la waxaa waaye maaragtay laan dheerahayna waaye abow waa mahadsan tahay maxamed sidoo kale walaalkay maxamed kaadheeri oo maalintaas soo baxay ilaa deertaan taleefanka dhegta ku haay waxaan leeyahay walaalkay adna waa mahadsantahay 1000 jeer iyo 9 jeer warahay tumin waa ku tuugaa dhammaan walaashay deeqo walaalkay sayid cumar dhammaan tuin cabdiqaadir koronto farxiyo daayniile walaashay fartuun kareeto dhammaan gabdhaha dhaantada wiilasha quruxda badan haye kaamirmaanada kulligeen waxaan leeyahay qalbiga gacanta waa qalfoofa qalbigaan ka salaamay aad baan idin jecelahay waana mahadsantihiin waqtigiina ay isoo wurteen qoraxdii iyo qabowga ay taagneedeen waa idin ogahay waadna mahadsantihiin waa mahadsan tahay waa xaggaas waxaan kusoo gabagabeynaynaa soo dhoweynteennii loo samaynayo ayaan waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo